السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كحران فاتوشنا سود وهذا عاوشة كذا إني هاي عاد بيسكروا تاي عاد بلوغ عبصنا سود وهذا إن سبسكرايب صارت شانالك أصحابتينا لا شير قراية ده فيديونا لايك تقدرتي لايك بدن ومقلي تري قفت على النصيب بدنا هذا شيء كذا عاد بيسكروا تاي إلهي نمطصو لكن هذا هو النصيب cunug yariisa oo 2 sano jira ayaa waxa la yiri waxa la qaday hibo waxa waaye jeer waaye السلام عليكم أصحابتنا نقول حرن سود واد داهية إنه كسود واد قروح بدن كلر كستا داهية وحكا صود عاي إنه بأن عادهن كلر كستا كلر كي أجعشو جورجا جوالو هايا تلفون كشاشة دكو قرنا جلسوا حريرة ضرب كاي كسود ديبو 50 state أو United States بوان سمايا شيبين سيدو كلا توين سيرس كوحا آن سماينا ديليف سومالي جربة ليرادا هي بوداس مركي عنق لقضي عنق يربى ما يصاب بحضي مبيها يملاس قصب على عنق واحد يرجوري جوده أيو كهر عياراي مركو عنق جوري كهر عياراي ويقبطي waxaan ku iri way la qaday ayadoo la qaysa haaf bay la qaday ma wada laqeen la ilaaha illa allah warna xadin badan bolo iska ilaaliyo marka biyooyinka ay ag tagteen ilaahna ilaali cunugi waxa la yiri haaf jirkiisa kamid ah ayay la qaday markay la qaday dalaq siisay ayaa ila wacbfiir allahu akbar cunugi waxa ay dad meesha iska marayay ayaa inta ku soo orday ninba kusoo orday dhagax buu qaatay dhagax buu kaga waaray dam baashi way cabsatay markaas cunugii bay soo tuftay baalid naxdin badana ilaa waalidkooda meeshaas haday joogi lahaayeen imagine 2 sano jir waay 2 sano jir how tiny jirkiisu u yahay ayadu oo barkoor afkeeda intuu la egyahay weyn intuu la egyahay ninki qofkii jirka marayay wuxuu yiri markaan arkay cunug yarka ay ataagreysay ee ayse intay daftay ee dalaqsiisa qayb jirkiisa kamida kulay madaxiiba u horeeyay waxa wuxuu naxay qofkii markuu dhagaxyeeyay way soo tuftay meeshaas oo lagu soo orday oo cunug yara isbitaal loola cararay isbitaal cunug markii loola cararay cunugi waxa lagu sameeyay wala talaalay because waxa laga baqayaa inuu cudur ka qaado bal biyaha iska jirtay maxaa biyaha ka keenay de markii ugu horeysana ma ahano de laqidaas xaafka kaliya ma ogiye hadda ka hor waxaan maqlay inay hibo ku dishay dalxiise dad dalxiis qof dalxiisa ah oo ka imaada Taiwan inay Kenya ku dishay soo markii ugu horeysay dad disha maahan way dishay kaas way dishay kaw laakiin cunugan yarka nasiibkiisa la yaabo ya nasiibkiisa because markuu qofku de ilkay leedahay wax bay leedahay cunugu waa dhaawacmay la yiri cunugi markuu dhaawacmay waxa la geeyay isbitaalka waa dhaawiciisa laga soo wixii lana soo duray kadibna baarantigiisa loo soo celiyay Allah maxay naxayaan waxay ku tusinaysaa de inta malaga yaani hadii lagu tala galo inuu qofku meeshii la rabo lagu badbaadin karo meeshii la rabaad ku garaagtay soo waxa lagu leeyahay cunuga waa laga soo bixiyay isbitaalkii waxaan la rajaynayaa booliiskii ba hadlay inuu full recovery yaani uu de uu badbaado de uu caafimaad doono lana talaalay for rabies alaga talaalay waxaana loo dhiibaa lagu yiri baarantigiisa waxa lagu leeyahay hiboda jeerta markay ka soo baxdo biyaha iyo leegi markay ka soo baxdo oo ay banaanka u soo baxdo waxa lagu leeyahay waxa ay samaysaa beekay dadka aragto way cabsataa soo markay cabsato waxa laga yaabaa inay ataagreyso dalira tiny ilmana maba u daahayso marka waxa dadkii looga digay oo lagu soo saaray booliiskii iska ilaaliya wild animalka xayawaanada iska ilaaliya oo meelaha jooga markii xayawaanku waxa lagu leeyahay markuu bini aadanka arko wuxuu moodayaa asaga in la soo ataagalay oo weerar lagu soo
lagu soo waxeeyo يعني إن لصو ويرري مركو وحو إسدهايا بالإزدفاع يا وانا حيوانوين كان كريمة أهانا كوا حتى دان تراسكو ووين كأه waxaa lagu leeyahay cunuga sirka waa iska badbaaday laakiin waxaa lagu leeyahay haddii ay xanaaqdo bahashaas dadka way kala jartaa allahu akbar way kala jartaa baa lagu yiri baf ay kala siinaysaa way kala jaraysaa because waxay qabtaa ilko xoog badan iyo gowso xoog badan soo marka kaw ay kala siinaysaa yaa saa intay kugu daftaa lagu leeyahay saa ku kala jaraysaa marka cunugaas yarkaa wuxuu noqday the luckiest person waxaan dhihi karayaa dadka loo badbaado ilaahay badbaadiyay way badan yihiin laakiin laba jir waxa waaye dee hilib yar calashata laba maba la dhame hilib yar oo calaliso jak siiso maba u dhame laakiin allah ba ugu talagalay inuu ku badbaadiyo meeshaas ku badbaadiyo yaa 3 pm aheeda le markuu uu waxaynaysay oo ataagreenaysay Uganda ee ka dhacday marka isjiraya adaa maqli jiray meelaha America isteediyada qaarkooda oo kulaylka ah inay ku soo baxaan yaxaasyada iyo waxyaabahaas xaal arkaada guriga ka soo baxaysa markaas waxa arkaysa yaxaasku horta inuu ka cunin rabo marka meelaha ku maqli jiray meel kasta ka jirta marka cunugaas yarka aad u maanta iga yaabiyay waxaan waalidkii dhala qaraacan way arkeen way qaraacmeen because cunugaagii oo lagu yiri qaybtiis kamid ah waxa la qaday jaara la qaday waa wax scary ah waay soo shulub inay caloosha ku dhexridatay ay waxay haduu meesha dhex galan uu dhimanaya dad badan baa bahalo badan la qaanmahan marka jeerna waa wax ugu xun yaa very scary laba sano jirkaas laakiin he is the luckiest haduu caafimaad qabo is kala goyninba waxa waaye waa wax naxariista alla waaye inuu soo waxba kugu dhici karinin allah illa uu qadarimo ogi ayay ku tusaysaa marka storyga samaanta aad iiga yaabisay waxaan dhaa asxaabtaada bal la share gareeyaa leegiga markay tagaan ilmaha ay iska dayicin oo snap laga qaadan yaa la waxayna iska ilaaliyo marka biyaha ay markaa tagtiin yaa be careful yaa lagu dafin subscribe saar channelka aad u mahadsantihiin asxaabay sida aan markasta noogu xiran tihiin asxaabtiina la sii share gareeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh